ciidanka gumaystaha Yahuudda waxay gumaad ba'an ku hayaan muslimiinta Falastiiniyiinta. Masaajidka Al-Aqsa waxay ka dhigeen meel muslimiinta dhiigooda ay ku daadiyaan. Several Jewish groups have stormed the Al-Aqsa Mosque compound and occupied East Jerusalem. Video shows women and children crying for help as Israeli forces beat Palestinian worshippers with batons. Muddo 75 sano ah ayay muslimiinta dhiigooda daadinayaan. Ka hadlidda qadiyadda Falastiin waxay noqotay mid la iska indhatiro, laakiin haddii aad muslim tahay waxaa kugu waajib ah garab istaaga iyo taageero muujinta dhulka barakeysan ee Al-Aqsa sababtoo ah waa qibladii koowaad ee muslimiinta. Macluumaadka aan muuqaalkan kugula wadaagi doono ma jeclaysan doonaan inaad wax badan ka ogaato reer galbeedka ama westernka, waana sababta warbaahintooda aysan u soo hadal qaadin gumaadka iyo xaqiiqada qaraar ee ka jirta dhulkaas. Haddaba waxaan isdul taagaynaa xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta dhulkaas iyo laba wajiilnimada galbeedka oo ay ka indhasaabayaan caalamka. Isbarbardhigga labadan maamo, midna waa Falastiiniyad midna waa Yahuudiyad. hooyada Falastiiniyadda ah waxay ilmada uga qubanaysaa u ooynaysaa wiilasheeda oo horteeda lagu toogtay, halka maamada Yahuudiyadda ah ee meel la soo fadhido gantaalka ay Xamaas soo tureen wuxuu argagax galiyay wiilkeega eeygiisa oo eeyga noo joogo cabsi ayuu dareemayaa. bal meeshaas u fiirso halka hooyada Falastiiniyadda ah ay ka gubanayso ilmadana uga qubanayso ciyaalkeeda horteeda lagu gumaadayo. When the Hamas missiles were being fired at Tel Aviv, Dog was totally distressed. magacayga waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qadiyadda Falastiin. Al-Aqsa Mosque compound. الحرم القدسي الشريف. Temple Mount. It's a place that's always in the news. We have another session of violence here right in front of the Al-Aqsa compound. This is such a sensitive religious site, isn't it? One of the flashpoints that led to the 11-day conflict. In the early stages of military operations. 1948 Ingiriiska wuxuu soo dejiyay dhulka Falastiin Israa'iiliyiin ku kala baahsanay dunida waxaana la isku waafaqay in meeshaas ay deegaan u noqoto. Falastiiniyiintan waxay bilaabeen jihaad ay kaga hortagayaan Yahuudda dhulkooda la soo dejiyay. dagaalkii waagaas bilowdana ilaa hadda waa u socdaa, laakiin Yahuuddu waxay taageero buuxa ka helayeen ciidamada Britishka ee meesha soo dejiyay. waxaa guryahooda laga barakiciyay Falastiiniyiin aad u badan ayagoo qaxooti ku noqday wadamada caalamka. ujeedka iyo hadafkan wuxuu yahay in meeshaas Falastiiniyiinta laga kiciyo si Yahuuddu meesha dhul balaarsi ugu samaysato, meeshaasna deegaan rasmi ah ay ugu noqoto. sanad walba Mareykanku wuxuu ku bixiyaa lacag dhan $3 bilyan dhaqaalaha ciidanka Yahuudda. haddaba haddii Yahuuddi ay taageero buuxa ka heleen Mareykanka iyo Ingiriiska, su'aasha meesha taala waxay tahay away wadamadii Carabta ahaa ee Falastiin ee wadaagaan dhaqanka iyo diinta Islaamka. meel yar ayaan wax ka tusayaa. dunida waxaa ka jira waxa la dhahaa isbahaysi ama alliance. wax badan waad maqashay midowga NATO, midowga Yurub, midowga Afrika, veto power. haddaba waxyaabahaas oo dhan waa isbahaysi ama alliance. waa maxay macnaha saxda ah ee alliance? bal Google aan weydiino waxa uu ku macneeyo. in international relation waa xiriir caalami ah, a formal agreement between two or more states for mutual support in case of war. heshiis rasmi ah oo u dhaxeeyo laba dawladood ama in ka badan si uu midba midka kale u taageero haddii uu dagaal dhaco. macnaha saxda ah ee alliance ama isbahaysi sidaas ayaa lagu qeexay. haddaba isbahaysiyadaas kala duwan ee ka jira dunida, Falastiin waxay ka mid tahay ama xubin ka tahay midowga jaamacadda Carabta. midowga jaamacadda Carabta waa 22 dawladood oo isku tagay oo ku heshiiyay in midba midka kale uu saaciidayo garab istaago. isbahaysiga ama midowga jaamacadda Carabta waxaa lagu aasaasay Egypt 22 March 1945 waxaana waagaas lagu bilaabay 6 dawladood oo kala ah Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia iyo Syria. Falastiin waxay xubin ka noqotay 9 September 1976. isla sanadkaas 1976 June waxaa qarxay dagaalkii 6 maalmood ee u dhaxeeyay Yahuudda iyo wadamada Carabta. wadamada Carabta marka aan leeyahay dagaalku wuxuu u dhaxeeyay Yahuudda iyo 3 dawladood oo Carab ah oo kala ah Egypt, Lebanon iyo Syria. dagaalkaasna wuxuu ku saabsanaa in Yahuuddu ay waday dhul balaarsi oo qayb Egypt ka mid ah ay qabsatay, dhul buuraley ah oo Syria ka mid ahna way qabsatay. meeshaas ayuu dagaalka ka qarxay. فعلا أيها الإخوة الشعب العربي شعب واحد والجيش العربي جيش واحد ولن يفرق بيننا الاستعمار. intaas ka horna waxay Yahuuddu mar walba gumaadaysay Falastiiniyiinta, wadamada Carabtana ay ku daawanayeen. haddaba sida xaqiiqada ah midowga jaamacadda Carabta ayaga ayaa la isku dumiyay oo waxaa loo adeegsanayay in midba midka kale lagu dumiyo, waxaana gadaal ka riixayay Mareykanka iyo Yahuudda oo dhinac ah. Falastiin waxay xuduud wadaagaan wadanka Masar,
waxaana la saxiixay heshiis ah in gabi ahaan la xiro xuduudda u dhaxeysa marinka Gaza iyo Masar si meeshaas looga cunaqabateeyo Falastiiniyiinta hubka ooga imaanaya banaanka oo ay kula dagaalamayaan Israa'iiliyiinta sidoo kale Mareykanku wuxuu qorsheenayay heshiis ah in dhammaan wadamada Carabta la dejiyo shacabka Falastiiniyiinta ah inta guryahooda laga soo raro wadamada Carabta deegaan ahaan looga dhigo si meeshaas ay Yahuudda u qabsato ama toos oo la wareegto 2003 taliskii Bush waxay dagaal ku qaadeen oo ay dumiyeen dawladda ka dhisnayd wadanka Ciraaq. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. haddaba ha iloobin Ciraaq waxay xubin ka ahayd midowga jaamacadda Carabta dagaalkaasna Mareykanku waxa ku caawiyay dawladaha kala ah Egypt iyo Saudi Arabia maraakiibta dagaalka ee Mareykankana waxay joogeen biyaha badda ee Sacuudiga meeshaas ay duulaan ka ahaayeen sidoo kale taliskii Obama wuxuu dagaal ku qaaday oo asagana dumiyay dawladii awoodda badneed ee ka dhisneyd Liibiya oo hogaamiyihii Muammar al-Qaddafi waxa la gaaray in meedkiisa lagu jiido wadooyinka. Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. The last major regime strongholds have fallen. sidoo kale wadanka Yemen asagana waa idumiyeen madaxweynihii Ali Abdullah Saleh asagana meedkiisa waxa lagu jiidayay wadooyinka Sanca waxa soo dhan marka ay dhacayeen midowga jaamacadda Carabta waa oo dhisnaa waa sida saddexdii dibi inta libaaxa soo dhaxgalay midba midka kale uu ku daawanayay ilaa kulligood uu wada cunay wadamada Carabtan waxay noqdeen meel ayaga la isku dumiyo gumaadka Falastiin ka socdana wuxuu noqday shaashad ay caalamka daawanayaan oo si entertainment ahaan u daawanayaan ama film ah bil walba oo Ramadaan ahna waxa la beegsadaa muslimiinta ku cibaadeysanaysa masaajidka Al-Aqsa ayagoo meeshaas dhigooda lagu daadiyo maalmo ka hor waxa la soo duubay muuqaal ciidanka Yahuudda oo inta masaajidka Al-Aqsa gudaha u galay jirdil iyo qaraac u geysanayo hooyooyin iyo dad waayeelo ah oo meesha ku tukanaya salaada taraawiixda kuna cibaadaysanayo. I was praying and I was sitting on a chair reciting the Quran. They hurled stun grenades. One of them hit my chest. Ra'iisul Wasaaraha Yahuuddan wuxuu sheegay in ciidanka Israa'iil haddii la barbar dhigo dawladaha kale ciidankooda ay yihiin ciidanka ugu asluubta fiican bal muuqaalkan ila daawo. But I can tell you categorically, there is no army in the world that acts in a more moral fashion than the army of Israel. Ya Allah! 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 dood ku saabsaneed qadiyadda Falastiin ayaa waxa ka soo qayb gashay oo wadankaas matalaysay gabar Falastiiniyad ah oo qoraa ah doodana sidan ayay u dhaceysay waxa meesha fadhida maamo Yahuudiyad ah waxayna su'aal weydiisay gabadha Falastiiniyad ahayd ayadoo dhahayso gantaalka ay Xamaas ku soo tuuraan dhulka Israa'iil wuxuu argagax galiyaa eega wiilkeega u joogo waxay leedahay wiilkeega iyo qoyskiisa safe house ayay galaan oo shacabka Israa'iil waxa loo sameeyay guryo ku yaala dhulka hoostooda si ay uga badbaadaan gantaalada uga imaanaya Falastiin duqdaana waxay leedahay wiilkeega iyo qoyskiisa meeshaas ayay galeen safe house-ka laakiin dhibka taagana waxay tahay wiilkeega eegiisa waxa uu ka argagaxayaa gantaalka ay Xamaas soo ridayaan. Son lives in Israel and works with the International Committee of the Red Cross. When the Hamas missiles were being fired at Tel Aviv, he was messaging us that he and his wife were okay in their tiny safe room. His dog was totally distressed. Why is the suffering of innocent civilians being attacked, innocent Israeli civilians being attacked, and the Hamas being ignored? gabadhii Falastiiniyada ayaa u jawaabtay waliba si kulul ayay ugu jawaabtay ayadoo dhahayso ciyaal ayaad gumaadaan hooyooyin ayaad gumaadaan dad masaakiin oo waxba in ka galabsan ayaad dhiigooda qubtaan waxaadna meeshan la imaanaysaa wiilkeega eegiisa ayaa cabsi dareemayo waa meesha ay gaarsiisan tahay maanta dunidan aan joogno in ciyaalkii hooyooyinka la gumaado ayagana ay la soo taagan yihiin waxaan u baqaynaa eegeena. Happy that your son has a safe house to go to, dropping bombs on civilians, and you're talking to me about the safety of Israelis. Where are Palestinians in Gaza supposed to go to? Your son's puppy, your son's dog was scared. There are children who were massacred and slaughtered. 9 Palestinian families have been wiped off the civil registry. Just yesterday, there was a tweet about that. waa nolosha xaqiiqada ah ee ka jirto Falastiin muuqaalkeen intaas ayuu noogu egyahay waxa inoo balan ah muuqaalkan muuqaalka xiga haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow waqtigaagana aad ku mahadsan tahay.